agaasimayaal jaaliyada ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka kana soo jeeda gobolada Odal, Sool iyo Sanaag loogana hadlayay midnimada ayaa halkaas lagu qabtay sida faafinta warka inoogu soo diray Siyaad Saciid Saalax oo halka inooga soo warama. Shir si weyn loo soo agaasimay loogana hadlayay midnimada Soomaaliya laguna diidan yahay kala go'a ayaa lagu qabtay Safari Hall ee ku yaala magaalada Minneapolis. shirkan oo ay qabanqaabadiisa lahaayeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada Awdal, Sool iyo Sanaag ee ku nool gobolka Minnesota ayaa waxa ugu horeyn faahfaahiyay ujeedada shirka Mahdi Muuse Isaaq oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada. walaalayaal saad ogtihiin waxa ugu muhiimsan ee shirka loo qabtay waxa weeye in taageero buuxda haddaan nahay beelaha waqooyi marka la yiraahdo waa beelihii ku midoobay suurana geliyay inay Soomaaliya hal dawlad noqoto oo ayna 2 iyo 3 noqonin maantana waxay diyaar u yihiin kuna baaqayaan in beelaha waqooyi marnaba ayna raali ka ahayn inay Soomaaliya noqoto dawlado magacyo kala duwan wata maadaama ay suurto geliyeen 60kii gol khaatumo in gacanta la isku saaro shuruud la'aan dawlad kaliya oo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya ay ku dhalatay beelahan shirka soo qabanqaabiyay adaatiin walaalaha Soomaaliyeed ee halkan fadhiya aan beelaha ahayn ama kuwa kale ee dhageysan doona umaanu soo qabanqaabin beela kale oo reer waqooyi in lagu dulmiyo ama dhibaato loogu geysto ama xuquuq iyagu ay leeyihiin lagaga qaado meel kasto oo dadku joogo waxaanu doonaynaa sinaan iyo cadaalad min koonfur ilaa waqooyi in lagu noolaado in dadku ay ku soo noqdaan wixii dhaqanka inoo ahaa ee la isku xurmeyn jiray ee qabiilka lagu qadarin jiray wada dhalashadii islaamnimadii tijaaradii erayar oo erayo murtiyo uu tiriyay ninka la yiraahdo Maxamuud Cabdullaahi Sungub ayaa waxa ku jiray hadii geed sawaal baxo sumad qaranna muujiyo salka lagama goyn karo anigu waxaan leeyahay salka iska daayo serbina lagama goyn karo waxay arinta Soomaalidu iyadaaba yar dalkeeda badan hays dugsatay sideeda loo daayaan leh intaas hadda jumhuuriyad waxa timid aan ku meel gaar ahayn oo Soomaali ah marka waa xilligii jumhuuriyaddii la xoojin lahaa la taageeri lahaa qof walba mowqifkiisa uu muujin lahaa marka dadka reer waqooyi waxaan leeyahay dhibaatada idinku dhacday Soomaaliya oo dhan bay ku dhacday حمر آوي عاصمة آوي أو أنت ميزانية لقلي وين بربرتي قبل هذا الحين ساسو كله بربرين مذوق وقوي ساسو كله ماله البابا دبعته ويسام يسي مركب وحوية إن هذا إنه كفكرنا قاب كانوا لسان لهين مررك قاركود وحا سويديا Soomaalidu waxay cadeecdaa qofka dagaaloogaha ah ama qofka diidan ama qofka dulmiga wada balse waxaan fariin gaar ah aniga shakhsi ahaan aan u sheegayaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waxa loo doortay ummadda Soomaaliyeed inuu isu keeno saddexda su'aalood aan weydiinayo waxay tahay ummadda uu leeyahay hadda waa la shiraya oo aan oga digayno calanka buluuga ah qof lagu toogtay isagoo taagaya reerkeena jira inuu yaro 15 sano ku jira baa la ascaanood lagu toogtay isagoo taagaya calanka taagaya markii ninkii diidanaa baan daryeelaya damiirkayga ima siin laba calankii duwa ayne inaga kilwa irko kalay anu waxaan ahaa USB baan ku dhashay abahay waxa ninkii uu horeeyay Siilac looga doorto baarlamaanka Muqdisho USB oo ku barbaaray ku dhashay abahay jaamaca geela buux baa la oran jiray waa la yaqaanaa dadku dhan way ku wada garanayaan
meel laga turjumayay waqooyi oo dhan laga wada xukumayay oo ciidamada leysay ma jirin reer walba saasay ula galeen isticmaalkii markuu baxayayna reer walba xornimadoodii bay qaateen calankaas la wada hoostay wax u dhaxeeyay ma jirin calan waqooyi meel la tagay ma jirin kaasay wateen kaasa hargeysa laga saaray kaasa xamar la tagay dowladda Soomaaliya hadda dhisan waxaanu leenahay oo toos idiin leenahay cidna matashaa ma jirto oo gaar noo matashaa waxaanu nahay Soomaaliya waxaanu nahay xisbi USB la yiraahdo Zeyna Borome Lascaanood Laasqoray giddigood halkaasaan wada nahay calankaasaan wada hoos joognaa ama isugu tagaa Turkiga ama isugu tagaa Ingiriiska ama if we don't develop the infrastructure and if we don't develop then forever will be a failed state and there will be no justice. And also in London in the coming conference one of the main issue that the whole world and the Somali people will be talking is justice. So we are asking the Somali government to do also its part and fulfill its obligations. waxay dhammaan taageereen dadkii halkaa ka hadlay dowladda Soomaaliya midnimada Soomaaliya calanka Soomaaliya shirka Turkiga iyo UK ka dhici doona shaki bay ka muujiyeen Siyaad Saciid Saalax Somali Channel Minnesota